ugu horeyn gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shoote oo fadhiga maxkamadda furay ayaa jeediyay eedaha xafiiska xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida uu ka soo qoray ama uu ku soo oogay gaashaanle sare Cabdinaasir Xoosh Maxamuud oo loo heesto in 18 bishii koowaad sanadkan 2018 uu dilay marxuum Ekisareeye Guuto Siciid Aadan Dheere Siciid Mariino oo ahaa abaanduulihii ciidanka badda Soomaaliya. waxaa lagu eedeynayaa Cabdinaasir dembiga ah dil kas ah kadib markii aad si bareer ah xabad uga dhufatay madaxa marxuum Ekisareeye Guuto Siciid Aadan Yuusuf Siciid Mariino oo ahaa abaanduulaha ciidanka badda xoogga dalka Soomaaliyeed. dembigaas oo ka dhacay degmada Xamar Jajab gudaha dekedda Muqdisho taariikhdu markay ahayd 18 bishii koowaad 2018. maxkamaddu ahayd mid furan waxaa goobjoog ahaa ehelada marxuumka la dilay iyo eedeysanaha abuukaataha eedeysanaha u doodayay iyo sidoo kale saraakiisha xafiiska xeerlaalinta waxaana la gudagalay dooda maxkamadda oo lagu soo bandhigay cadeymo marag furu ah dacwada lagu soo oogay eedeysanahan iyo qaabkii dilka uu dhacay oo ay ka mid yihiin hubkii dilka lagu fuliyay iyo gumcii xabadda marxuumka ku dhacday iyo sidoo kale koofidii marxuumka uu watay oo qaybteeda dambe ay ka dhex baxday xabaddii marxuumka ku dhacday sida baariyaasha dembigu ay sheegeen. sidoo kale warqadda dhimashada marxuumka oo uu soo qoray isbitaalka meydkiisa la geeyay ayaa goobta lagu soo bandhigay. sidoo kale qiraalo laga qoray eedeysanaha oo uu ku qiranayo inuu isaga dilka ka dambeeyay ayaa goobta lagu soo bandhigay. kiiskan waa phenomena waa full colonel oo general dilay Soomaaliya wax ka dhacay wali ma intii Soomaaliya xorta ahayd wax ka dhacay ma nidaamkii ciidamadana waa wax ku foolxun waa taariikh la fiirsanaya maxkamadda waxaan u sheegayaa ciidamada qalabka sida dhismahooda ku xiranta waa in la toogtaa sarkaalka sharciga la marsiyaa maxkamadda intaas aan weydiisanaya. waxaan dhinaca kale fursad la siiyay qareenka eedeysanaha difaacayay oo dhankiisa la siiyay waqti ku filan oo eedeysanaha uu ku difaaci karo. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shoote oo maxkamadda soo xiray ayaa sheegay in kiiska eedeysanahan uu dhameystiran yahay wixii go'aanaha maxkamadda ay dib ka soo sheegi doonto. garmaqalkii la xiriiray dacwada loo heesta gaashaanle sare Cabdinaasir Xoosh Maxamed intaas ayay ku dhameystiran tahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonto. Ibraahim Gudle Isxaaq raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.